السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أهلكم كسلام يا دمان ومدة الصوماليات ميل كستي joogto salaanka bacdi waxaan caawakan kaloo aynu kaga hadlaynaa mowduuc kale oo quseeya Somaliland wataynu hore uga hadalnay dhibaatada wadankii ka jirta dowladnimada soo wajahday kala talisnimada ka dilaacay xorriyad la'aanta ka jirta boobka xoolaha ummadda oo noqdayba wax iska caadiyo oo dadkii oo dhan ay arkayaan oo cid ka hadlaysa ma jirin ama cid wax ka qabanaysa aanay si kasta loogu tagrifalaya awood iyo maalba kaaca waxaynu ka hadlaynaa dhibaatada ayada waynu ka hadalnay dadkuna uu ka wada dharagsan yahay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye sidee loo badbaadin karaa dalkii dowladnimadiisina loo soo celin karaa dhibaato iyo khasaaro badan aynu uga baaqsan karnaa marka saddex waxyaabood ba taa aynu kaga baaqsan karnaa laba waxa weeye khasaaro weyn bay naga hor istaagayaan inaynu galno iyo waddanku naga burburay intaba mid waxa weeye inay xisbiyada mucaaradku ay doorkooda qaataan mucaaradnimo oo fursad bay haystaane ay maanta ummadii badbaadiyaan oo ay maanta ummadii horkacaan oo ay dadka mudaharaada isugu yeedhaan ilaa lagu soo noqonayo xaydaabkii sharciga isla markaana ay dareenka shacbiga ay matalaan reer Somaliland meel walba maanta ka cabanaya dhibtoonaya qaar dhulkoodii laga qaaday qaar la iska xirxirayin qaar ciidamo la dul dhigay qaarna la iska leynaya hadii la doono qaar ladies kaba taga oo aynu wada ogeyn oo ladies ka taga intiina kale inay iska taga ummadda saa loo kala dirayo maanta waxa weeye fursadii ay ku horkici lahaayeen ku midayn lahaayeen ayay haystaan marka waa inay fursadda aad iyo aad ugu dhow yeeshaan oo ay ummadda horkacaan waa waajib saaran haddii aanay taa yeeli karin dee ummaddana inay la gooyaan maaha inay hoosaasiyaanna maaha qodobka labaad waxa weeye magaalada Burco la yiraahdo magaalo taariikhi ah waa magaaladii waddankan lagaga dhawaaqay dowladnimadiisa dib looga soo celiyay waa magaaladii beelaha waddankan degan iyo reeraha waddankan degan la isugu keenay lagu heshiisiyey nabadooda lagu xidhay halka dabadeed ay ka soo bilowday waxa maanta jira magaaladaas iminka shir baa la yidhi waa lagu qabanayaa inkastoo la laba reer baa qabsanaya waxa aad iyo aad aniga ila muhiimsan oo ay muuqataa in beelaha Somaliland oo shirka la isugu yeero in dowladnimadii halka Burco lagu aasaasay maanta way beedhay oo masariir way ka beedhay waa si ujeedadii loo sameystayna uma taagna kamana turjumayso iskaba daa inay ujeedadii loo sameystay u taagan tahay dhibaato ayaa dadkeedii ku haystaa oo xarig leh oo cabrun leh horumar iyo inay qofkii muwaadinka ahaa iyo deegaanadii ay wax ka qabatay hadalkeeda badaa marka sidii loo soo celin lahaa aayaheediina iyo majaraheediina lagu soo celin lahaa rajadii ummadana halka dib loogu nooleyn lahaa dabadeeto waa cusub ummadda loo uga bari lahaa waa in laga shaqeeyaa waa in halka beelaha la isugu yeedhaa waa in magaaladaas waajibkeeda taariikheed ay mar labaad gudato waayo halgamadii hore ummadda Soomaaliyeed door aad iyo aad weyn bay ka soo qaadatay ilaa xilligii Ingiriiskii marka maantana waxa hor yaala magaalada waajib kale oo taariikhi ah shirkaasina way noqdaa shir ballaaran oo ummadda oo dhan isugu timaado qodobka kale ay tahay isagana inaynu ka hadalno ay tahay bulshadu inay aad iyo aad u ogaato gaar ahaan dadka xaq u dirirka ee ka soo horjeeda nidaamkan faasidka ee qabyaladoobay waxaan ognahay in magaalada Ceergaabo in ciidamo la dul dhigay oo ciidamo aad iyo aad badan la dul dhoobay meesha waxa la doonayaa in qalalaas ka bilowmo oo dagaal ka dhaco waxa weeye dadka la leynaya waa dadkii waddanka soo dhintay waxa weeye waa dadkii waddanka lahaa waa dadkii sodonkaasina Somaliland jirtay iyagoo manfac ku qabin ilaalinteeda iyo nabadgelyadeeda ka shaqeynayay ayaa maanta ciidan la dul dhigayaa oo la leeyahay cadowga ummadani waxa weeye waa cidda ummadda walaalaha ah ee isku aayaha ah ee isku mustaqbalka ah ee isku rajada ah ee aanu midna ka kala la'aantii waxba noqonaynin ama aanu keligii gaar waxba u noqonaynin doonaysa inay kala kaxayso doonaysa inay kala irdhayso doonaysa inay dagaal iyo qalalaase geliso dadka waxa ku waajib ah inay nafooda difaacaan inaguna inaynu isbarbar taagno oo aynu hiil iyo hooba isla garab taagno in aan dhiigoodana la banaysan in aan meesha goodoonka laga qaado in la muujiyo dowladnimadan inay dadka ka timi haddii ay ka shaqeyn weydo dantoodii
ay ka turjumi weyday in laga hor yimaado in taageero buuxda loo muujiyo qof kasta oo xaqudirir ah halgan wada doonaya in ummaddan dib isugu soo noqoto doonaya inay ummaddani midnimadeedii dib u soo ceshato doonaya inay dadkani wax wada yeeshaan oo Somaliland la wada leeyahay ay dhalato oo dadkeeda deeqda oo aayahooda matasha oo dareenkooda ka turjunta oo xuquuqdooda ilaalisa aad iyo aad bay taasina muhiim u tahay waana ay tahay in dhammaanteen ku wada baraarugsanaano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.